Helitaanka weyn ee Morocco ayaa dib u qori kara taariikhda Afrika. Helitaanka qadiimiga ah ee cusub ee Karakoud ee Morocco ayaa caqabad ku ah aaminsanaanta muddada dheer ee Maghreb, waqooyi galbeed Afrika ahayd dhul madhan ka hor imaatinka Fenisiyaanka ee ka yimid bariga dhexe qiyaastii sideed eber. Waxay daaha ka qaadaysaa taariikh aad uga qanisan oo ka adag sidii hore loo mooday. Wax kasta oo laga helay goobta ayaa tilmaamaya in xilligii Bronze Age, in ka badan 3 eber oo sano ka hor, degsiimooyinka beeraha ee deggan ay horeyba uga jireen xeebaha Afrika ee Mediterranean. Tani waxay la mid ahayd markii bulshooyinka ay ka mid yihiin Mi'enayan ay ku soo barbaareen bariga Mediterranean-ka. Daafurkayaga oo ay hogaaminayaan koox cilmi baarayaal dhalinyaro ah oo ka socda marxadka qaranka ee cilmi baarista qadiimiga ee Morocco, ayaa ballaarinaya aqoontayada taariikhdii hore ee waqooyiga Afrika. Waxa kale oo ay dib u qeexdaa fahamkayaga xidhiidhka ka dhexeeya Maghreb iyo inta kale ee Mediterranean waqtiyadii hore. Karakour ayaa markii ugu horeysay la aqoonsaday 1988kii, waxaana markii ugu horeysay la qoday 1992. Waqtigaas, cilmi baarayaashu waxay rumaysnaayeen in goobtaas la degganaa intii u dhaxaysay qarniyadii 8 iyo 6 ee bere. Tani waxay ku salaysan tahay dhoobada Finishiyaanka ee la helay. Nidaam adag ayaa la raacay si loo qaado muunado. Tani waxay noo ogolaatay inaan ogaano haraaga abuurka iyo dhuxusha lafoska ah. Kadib, taxliilin taxana ah ayaa noo ogolaatay in aan dib u dhisno dhaqaalaha dejinta iyo deegaankeeda dabiiciga ah waqtiyadii hore. Qodista, oo ay weheliso shukaansiga radiocarbon, ayaa shaaca ka qaaday in degitaanku soo maray 3 weji oo shaqo intii u dhaxaysay 22 eber iyo 6 eber. Hadhaaga ugu horeyn ee la diiwaangeliyey 22 eber aad bay u yar yihiin. Waxay ka kooban yihiin 3 xabo oo dhoobo ah oo aan qurxin, jajab dhagax ah iyo lafsa. Yaraanta agabka iyo duruufaha jira waxa ay sabab u noqon kartaa nabaad guur ama qabsasho ku meel gaar ah oo buurta inta lagu jiro marxaladan. Wejigeedii labaad, kadib muddo laga tagay, buurta Karakour waxaa si joogto ah loo qabsaday laga bilaabo 3 eber. Dadkii ku noolaa oo malaha 100 aan ka badnayn ayaa naftooda u huray beerashada iyo dhaqashada xoolaha. Waxay ku noolaayeen guryo wareeg ah oo laga dhisay watle iyo dawb, farsamo isku dar ah tiirar alwaax ah, awsaad iyo dhoobo. Waxay qodeen siloos dhagaxa si ay u kaydiyaan wax soo saarka beeraha. Falanqayntu waxay muujinaysaa inay beeran jireen sarreen, shaciir iyo digir, oo ay dhaqdaan lo, ido, ri iyo doofaar. Waxa kale oo ay u isticmaaleen dhagaxa wax lagu shiidi karo habaynta badarka, agabka dhagaxa iyo dheryaha la qurxiyey. Intaa waxaa dheer, shayga naxaasta ah ee ugu dada weyn ee loo yaqaan waqooyiga Afrika, marka laga reebo Masar, ayaa la diiwaangeliyey. Waxay u badan tahay inay tahay jajab bir ah oo la saaray kadib markii lagu shubay caaryar. Intii u dhaxaysay qarniyadii 8 iyo 7 ee bere, intii lagu jiray, waxaa loogu yeero xilliga Mauritanian, dadka deggan Karakour waxay ilaalinayeen isla dhaqankii agabka, naqshadaha iyo dhaqaalaha sidii wejigii hore. Si kastaba ha ahaatee, isdhexgalka bulshooyinka Finishiyaanka ee bilaabay inay degaan meelaha u dhow, sida Lixus, waxay keeneen dhaqamo dhaqameed cusub. Tusaale ahaan, guryo wareeg ah waxay la noolaayeen kuwo laba jibaaran oo ka samaysan dhagax iyo watle iyo dhoobo, isku darka Finishiyaanka iyo farsamooyinka dhismaha deegaanka. Oo weliba waxaa la bilaabay in la beero dalagyo cusub, sida canab iyo saytuun. Waxyaabaha cusub waxaa ka mid ah eramitska Finishiyaanka ee giraangiraha lagu sameeyo, sida ambhore, caagag kaydinta iyo taarikada, iyo isticmaalka walxaha birta ah ayaa aad u muuqda. Qiyaastii 6 eber, Karakour si nabad ah ayaa looga tagay, laga yaabee inay sabab u tahay isbedelada bulsho iyo dhaqaale. Dadkii deganaa waxay u badan tahay inay u guureen degsiimooyinka kale ee u dhow. Haddaba yaa ahaa dadkii deganaa dada Bronze? Ma cadda in dadka Maghreb ee xilligii Bronze-ka ay ku noolaayeen qabiilo, sida hadhow dhici doonta inta lagu jiro xilliga Mauritanian. Waxay u badan tahay in loo habeeyey reer ahaan. Xabaalku waxay muujinayaan inaysan jirin calaamado cad oo kala sarayn ah. Waxaa laga yaabaa inay ku hadleen luqad la mid ah ama Sig, luqadda asaliga ah ee waqooyiga Afrika, taas oo aan la qorin ilaa la hirgelinayo alifbeetada Finishiyaanka. Joogitaanka dhaqameed ee laga diiwaangeliyey Karakour waxay soo jeedinaysaa in dadkani ay yihiin awoowayaasha tooska ah ee dadyowga Mauritania ee waqooyi galbeed Afrika. Maxay tani muhiim u tahay? Karakour ma aha oo kaliya degsiimadii ugu horeysay uguna dada weyn ee loo yaqaan dada Bronze ee Maghreb, laakiin sidoo kale waxay dib u qaabaynaysaa fahamka taariikhda hore ee gobolkan. Natiijooyinka cusub oo ay weheliyaan daafuryo kale oo dhowaan ayaa muujinaya in waqooyi galbeed Afrika ay ku xiran tahay gobollada kale ee Mediterranean, Atlantic iyo Sahara tan iyo waqtiyadii hore. Natiijooyinkayagu waxay caqabad ku yihiin sheekooyin dhaqameed, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay saameyn ku yeesheen aragtiyo gumaysi oo ku tilmaamaya Maghrib inuu yahay dhul madhan oo godoonsan ilaa ay xadaarad ka heleen dadyow shisheeye.
Natiijo ahaan, Maghreb ayaa muddo dheer ka maqnaa doodaha ku saabsan taariikhda dambe ee Mediteraneanka. Helitaankan cusubi maaha oo kaliya inay ka tarjumayaan horumarkii qadiimiga, laakiin sidoo kale baaq ah in dib loo eego sheekooyinka taariikhiga ah ee muhiimka ah. Karakoore wuxuu bixiyaa fursad uu dib ugu qoro taariikhda waqooyiga Afrika oo uu siiyo muuqaal ay weligeed u qalanto. Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay wakhti go'aamin cilmi baaris oo weligeed beddeli karta habka aan u fahamno ma aha oo kaliya taariikhda waqooyiga Afrika, laakiin sidoo kale xiriirka ay la leedahay meelaha kale ee Mediterranean.